waxaa maalnimadii shalay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool soo gaadhay gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda Langaruusala ee Somaliland waxaana maanta uu ka qayb galay munaasabad xadhiga looga jirayay xafiiska iskaashatada gaadiidleydan oo ku yeelan doona guud ahaan gobolka Sool munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ugu horreyn munaasabadan waxaa faahfaahin ka bixiyay kana hadlay gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda Jaamac Axmed Gaashaan waxaana faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha uu qaban doono ururkan iskaashatada Langaruusalada IGL heer qaran oo aynu maanta xafiiskeedii afraad ka fureyno gobolka Sool iskaashatadan waxa laga ixtiraacay Hargeysa markii hore markay iskaashatadu aragtay dhalinyaradu dhibaatada ka jirta kala daadsanaanta ayay waxay garatay oo fikirtay inay isu tagto wada qabsato wada tashato isku midna noqoto gaari doonaysa ama qof kasta oo gaari doonaya oo xafiiska ay yimaado oo halka ma garanaysa haday security ahayd oo amaankii ahayd iyo wax kasta looga baahnaa xafiiskaas kala hagaya hadii Allah raxmaanka ay raxiimka ay naxariisto oo raalli ka noqdo waxaan filayaa dhalinyarada gobolku dhammaan inay ku wada midaysan yihiin iskaashatadan iyo shirkadii horaba marka waxa ka beeraysa halkaas oo ka imanaysa walaaltinimo iyo isjacayl iyo wax wada lahaansho xitaa iskaashatadan hadii gaadiidkoodu awal hore ay fijuwal u lahaayeen inaynu gaadhno heer aynu gaadiidkii wada leenahay oo san inoo oran gaariga calawida aniga iskale ee la yiraahdo iskaashatada ayaa si guud u wada leh sida kuwa kale oo kale gobolka Laascaanoodna waxaan leenahay dhamaantiin waa inaad ka midaysnaataan shirkadda gaadiidka Langaruusalada reer qaran cidii gaadiid lahayna ku soo midowda waxaan leeyahay nabadgelyada haday tahay waxbay ka taraysaa shaqada waxbay ka taraysaa horumarka gobolka ee shaqo abuurka waxbay ka taraysaa inkastoo mid walba dhib ku haysatay bartiisa haddana tuhun baa jiray la isla qabo laakiin marka meel la wada samaysto saxankii wuxuu noqonayaa nin walba wuxuu meel kaga fadhiyo waxa qariban uu fahmayaa cidii uu eedeynayay iyo cidda aan uu eedeynayna uu kala garanayaa taasi waa ujeedooyinkan oo aasaasnay iskaashatada ee wada lahaanshiyo uu yahay saabiga shaqada cadaalad loo qaybsado si siman la isu dhaxgalo waan soo dhaweynaynaa shirkadda Langaruusaladana kulli iskaashatadan waxay nagu haysay anaga dib weyn oo midba hay'adba wax iga qaatayo Langaruusalba mid hay'ad hoos galayo midba qorisa ku taamaayirko garba qabateenaya waxa la maqli jiray waxaan jeednaa tiina maanta soo dhamaatay dadku ku siman yihiin shirkadda lagu wada jiro marka aad iyo aad baan soo dhaweynaa iskaashatadiinu maadaama aad fahanteen in ayna waxba tarin kala socodka iyo shakhsiyadda qofku kaligiin uu cuno inaan waxba tarin aqliga iyo maanka iyo fikirka iyo maskaxda isu geysiteenba waa idinku hambaliyeen waxaan leenahay ilaahay idinku barakeeyo ilaahay kii isaaqad wacan iyo maal inta ka badan idinku siiyo waan idin bogaadinayna waxaan idin leenahay hambaliyo iskaashato waa wada qabsi iyo wada lahaansho waana horumar runtii aad baan ugu faraxsanahay gobolka Sool shirkado badan oo ka samaysmo tii idinka horeysay ahayd muxuu ahaa sahal miyay waxaan malanayaa halkan maanta qabiil waa ka baxdeen shirkad baa tihiin maanta awal wax la horti gaariga hebel baa halka maray gaariga hebel baa halka maray laakiin maanta shirkad baa tihiin shirkaduna faa'iidooyin fara badan bay keentaa shaqo abuur bay keentaa horumar bay keentaa waxaan leeyahay tii lagu naxjaalaha ka dhigo bakhaarada waa aragtaa hadda waa iskaashato wax kasta iskaashato u gudbaan waxaas ku khayr iyo baraka badan wax la leeyahay baraka badan Ismaaciil Haradiga Diyaariyal TV Laascaanood